wafdi heerkiisu sarreeyo oo uu hogaaminayo xogayaha guud ee gaashaanbuurta difaaca NATO ayaa booqan doona wadamada Finland iyo Sweden June 12 ilaa 13 June sida lagu sheegay war ka soo baxay isbahaysiga maanta oo Jimco ah. socdaalka wafdiga uu hogaaminayo xogayaha difaaca NATO dhinaca dalka Finland oo ay ku bilaabi doonaan socdaalkooda hore waxa uu halkaasi kula kulmi doonaa madaxweynaha dalka Finland, wasiirka amuuraha dibadda iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan dawladda. inta uu ku sugan yahay Finland, xogayaha gaashaanbuurta difaaca NATO iyo wafdigiisa waxa uu halkaasi uga qayb gali doonaa wada hadalka kultaranta oo lagu qabanayo halkaas kaas oo halgudhigiisa uu yahay xooganaanta gobolka waqooyiga, xasiloonidiisa iyo horusocodkiisa. Isniinta madaxa NATO ayaa u safri doona Sweden si uu la kulmo ra'iisul wasaaraha dalkaas iyo madaxda dawladda. xogayaha isbahaysiga difaaca ayaa inta uu ku jira socdaalkiisan waxa uu wada hadallo muhiim ah la yeelan doona mas'uuliyiinta labada dhinac iyaga oo si wada jir ah warbaahinta u hor imaan doona kana warbixin doona dadaalada ku wajahan doonista wadamadan ku yaala waqooyiga qaaradda Yurub ee ah inay helaan xubinnimada isbahaysiga difaaca kadib culays ka soo wajahay Moscow iyaga oo ka baqdin qaba goori ayaan walba inay u nugul yihiin dawlaan uga yimaada Moscow. labadan wadan ayaa bilihii ugu dambeeyay dadaalkooda xoojiyay wax walba ayay sameeyeen si ay ugu suuro gasho doonistooda ku wajahan helitaanka xubinnimada NATO. Mareykanku waa uu la dhacay damaca doonis ee dalalkan waxaana uu muujiyay qudhiisa in uu gacmo furan ku soo dhaweynayo dadaalkiisana uu ku bixin doono sidii ay u rumoobi lahayd riyada dalalkan oo muddo dheer ku naaloonayay dhexdhexaadnimo. haddase deerkaas waa uu soo xirmayaa. marka dadku ay maqlaan NATO wax badan ayaa durba maankooda ku soo dhacaya. weydiimaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah sidee loogu biirayaa NATO, sida loo noqdo xubin NATO, habka codsiga iyo guud ahaanba waxyaabaha hoose oo ah shuruudaha muhiimka ah. haddii aynu ku bilaabno sida loo noqdo xubin NATO ah iyo habka codsiga ee NATO-ba. dalka codsadaha ayaa warqad u diraya xogayaha guud ee gaashaanbuurta difaaca ee NATO. sidoo kale martiqaad rasmi ah oo lagu bilaabayo wadahadal loo dirayo wadanka codsadaha ah. wadaxaajoodyada u dhaxeeya wadanka codsadaha iyo NATO ayaa ay tahay in uu bilaabmo. NATO waxay bixinaysaa markaa kadib iftiin cagaaran oo macnaheedu yahay ogolaansho iyo si la mid ah dareenka doonis ee jira in docdeedana uu ka socdo. tan ugu dambaysa ee muhiimadda loo arkay waxay tahay heshiiska wadamada NATO ay saxiixeen ma ka hor imaanaya qorshaha codsadaha wadanka kan, taas oo dib loo eegayo. haddii ay noqoto maya, ma jirto sabab iyo dareen diidmo oo dawladaha kani hor istaagi karaya.